السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحفصة موسى وحا marka la idinku soo noqotay waxaan idin leeyahay maalintu ha idin wacnaato habeenku ha idin wacnaado galab hadaa joogto galabta ha ku wacnaato waqtiga joogtaba ha ku wacnaado biidnillah xil qayyum waxaan kugu salaamayaa salaanta islaamka ee assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan rabaa maadaama aan ku jirno bishii shahru ramadaan inay tahay waxyaabaha aan wadaagayna haddii ilaahay idmo waxyaaba aynu wax ka faa'iideyno. waxaan rabaa inaan nafteeda xasuusiyo taadana aan xasuusiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku sheegay dadka wanaagsan ثم كان من الذين إلهي سبحانه وتعالى ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمة. إلهي سبحانه وتعالى وحوده هاي دتك إلهي سبحانه وتعالى رميي waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku sheegay inay yihiin dad sabarka iyo naxariista isku dardaarma. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu dhahay ulaa'ika asxaabul maymana, dadka sidaas oo sabarkii wanaaga isku dardaarma iyo naxariistu waa dadka asxaabul maymana la dhaho, asxaabtii midigyada. wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa dhahay sallallahu alayhi wasallam inamaa yarxamu allahu min cibaadihi arruxamaa. waxaa laga yaabaa maanta haddaa aragtid qof oynaya ama qof dhibaato soo gaartay ka danqanaya inaad dhahdo qofkan waa emotion ama aad ku ceebaysid ama aad u aragtid wax ma aragtay qaldan. example waxa weeye aniga hadda oo kale qof aad u qalbi jilicsan baan ahay, ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu ii abuurayna waay. waxaa laga yaabaa markii inaad qofka jaajgaraysid. wuxuu marka nabiga sallallahu alayhi wasallam dhahay xadiiska nabiga anigoo ka duulaya nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay inamaa yarxamu allahu min cibaadihi arruxamaa. ilaahay wuxuu u naxariistaa adoomadiisa naxariista. ilaahay waxaan ka baryayaa inuu adiga iyo anigaba inaga dhigo min cibaadihi arruxamaa. wa qowli rasuulka sallallahu alayhi wasallam haddana rasuulku wuxuu dhahay sallallahu alayhi wasallam irxamu man fil ard, u naxariista dadka adduunka dushiisa saaran ama dhulka dushiisa. yarxamukum man fis samaa, waxaa idiin naxariisanaya man fi samaa, allihii samada joogay. rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu inagu dhahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu kaloo xadiis ku dhahay isaguna man laa yarxam laa yurxamu. qofka aan naxariisan ilaahayna looma naxariisto. ومعناه يقفك عن حريصا إلهينا أمن حريصته. إلهي وحو حديث رسولك كير صلى الله عليه وسلم تنزع الرحمة من الشقي. إلهي سبحانه وتعالى رحمة ين حريصته وكسيبي إلهي سبحانه وتعالى قفك شقيقة نحريص أن ملحن من حريصته. قفك شقيقة هي من حريصته. هداد أردت قفنا حريص بدن oo dib qof soo gaaray ka damqanaya oo qof baahan ka damqanaya oo qof buka ka damqanaya waa qof qalbigiisa naxariis ku jirto. ilaahay naga dhigo kuwa qalbigooda naxariis ku jirto. rasuulku wuxuu kaloo sallallahu alayhi wasallam dhahay waxaad ogtihiin dadka muslimiinta ah inay yihiin sida uu rasuulku sheegay sallallahu alayhi wasallam. rasuulku wuxuu yiri mathalul mu'minina fi tawaadihim wa tarahumihim. muslimiinta misalkoodu ama sida macnaha misalkoodu wuxuu la mid yahay naxariistooda wuxuu dhahay tawaadihim isjacaylkooda. markasta waxaan idin dhahaa I love you guys for sake of Allah. ana imeene waa iga dhab. wuxuu dhahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam mithlul mu'minina, sida mu'miniinta oo kale tawaadihim isjacaylkooda wa tarahumihim iyo isu naxariisashadooda wa tacaadufihim iyo isku dhimrintooda waa kamathali jasadin waaxid, waa hal jir oo kaliya. bal xadiiskaas si fiican u dhuux oo waxa laga yaabaa inaad taqaanid ama aniga aan kuu sheegayo aad iiga cilmi badan tahay. rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri mathalul mu'minina, sida tilmaanta dadka mu'miniinta ah waxay la mid tahay fi tawaadihim isjacaylkooda wa tarahumihim isu naxariisashadooda iyo tacaadufihim isku dhimrintooda kamathali jasadin waaxid, sida hal jir oo kale. jirkaaga ma laga yaabaa inaad lugtaada ama gacantaada dib u geysato? maya, waa kamathali jasadin waaxid, hal jir oo kaliya, hal jasad oo kaliya. haddii uu ka xanuunsado ida ishtakaa minhu cudwa, hadday jirkaaga meel ka mid xanuunsato تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. haddii jirkaaga meel ka mid maanta ciidadaa haday xanuunayso jirkayga dhan wuu la xanuunsanaya.
marka dadka muslimiinta ah naxariistooda iyo isku dhimrintooda iyo isjacaylkoodu wuxuu dhahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu la mid yahay ka jasadin waaxid hal jir oo kaliya ida ishtakaa minhu cudwa haddii jirkaa meel ka xanuunsato tadaacaa lahu saa'ir aljasadi jirka intiisa kale wuxuu ugu yeerayaa bisahri walxuma xanuunka iyo xumadda iyo qandhada iyo xanuunka waxaan idin leeyahay inta aan mar kale iskugu iman doono barnaamij kan la mid ah ilaahay ha naga dhigo addoommadiisa raxmada ah ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu noo naxariisto siduu alla subxaana watacaala uu yiri ee rasuulkiisu ilaahay wuxuu u naxariistaa addoommadiisa naxariista ilaahay ha naga dhigo addoommo isu naxariisto oo ilaahayna u naxariisto waa anigoo xafsa muuse nuux oo idin leh I'm not perfect you're not perfect we're not perfect sheekha is not perfect nobody is perfect adigana 100% ma tiid anigana 100% ma ihi sheekhuna 100% maahan qofna 100% maahan ilaahay naxariistiisa iyo marsigiisa jannada ha inagu geeyo waxaan ku leeyahay ilaahay ha inagu kulmiyo maqaama maxmuud insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.